Bismillah. Waxaan doonayaa maanta inaan idinla wadaago arrin runtii inagu soo kordhay baryahan oo ku saabsan qof bini'aadan ah oo Soomaali oo Muslim ah in uu naftiisa qaado oo qofku inuu isdilo waxa loo yaqaan suicide oo runtii self killing ama qofka inuu naftiisa qaado. Arrinta noocaas oo kala runtii it's a major public health problem in the community. Waa arrin dadweynaheena meel kastoo ay joogaan dunida daafaheeda ina soo taabanaysa oona runtii muuqanaysa hadday noqoto social mediaha, hadday noqoto xaafadihii ama degmooyinka aynu deganayn, iyo hadday noqoto in naloo soo sheego in mayd uu inoo yaallo qof aan la garanayn sababuu u dhintay laakiin la tuhmayo inuu isaga isdilay. Waxyaalo noocaas oo kale runtii aad bay inagu soo bateen, waana arrin runtii aad u xanuun badan oo qofka xanuunkii taabtay isagii teg, laakiinse waxay xanuun kale ku reebtaa reerkii uu ka baxay, saaxiibadii uu ka baxay, iyo bulshadii markaa meesha deganayd kuwa yaqaana iyo kuwa aan aqoonba. Waxay noqotaa hadalka maalintaasi ama wiigaasi runtii laga hadlo maxaa dhacay, sidee wax u dhaceen. Waa it is a traumatizing event oo runtii aanan ku ekayn qofka keliya ee baxay laakiin saameyn ba-an ku yeelanaysa familkii uu ka tegay iyo bulshadii uu ka tegay oo runtii aynan ilaa hadda aynan aqoon waxa aynu ka yeelno iyo sida aynu abaarno. Marka maadaama aynu ka hadalnay dhibaatada ay ku leedahay qoyska iyo qaraabada iyo saaxiibada, marka waxaan jeclaan lahaa runtii in aanu horta haddii ilaahay ii fududeeyo inaan wax ka idhaahdo haddii jiraan calaamado lagu garan karo iyo sida qof kasta oo inaga naga mid ah uu ku dareemi lahaa qof oo aad aragtid calaamado kasoo muuqanayaan ama hadallo ha noqoto afcaal ama maxaan ku rahdaa hadallo sidii wax looga qaban lahaa oo qofkaasi loogu xiriirin lahaa nidaamka ama badbaadada uu u baahan yahay. Ilaahay waa wax badbaadiye in lagu xiro nidaamka markaasi jira ee qofkaas wax u qaban karaya. Marka si aynu wax uga fahamno horta topican ama waxaan ka hadlayo maxay tahay. Suicide sida kelmaddu ay tahay waa qofka in uu isaga isdilo. Suicide, killing self, qofka inuu naftiisa dilo. Laakiin marka cilmiyan runtii loo baaro ama aan wax bal isiri bal si sheekadu maxay tahay, waxay leeyihiin qofka marka uu when a person directs violence at him or herself with the intent to end their lives. Qof marka uu dhibaato la doono naftiisa, dhibaato noocay doonto ha ahaato, markuu naftiisa la doono, dhibaatadaasoo xanuun badan or amase qofkii uu dhinto because of their actions, waxyaala isaga uu sameeyey, ama sun ha liqo ama xabadaha isku dhufto ama ha iska tuuro buur ha iska tuuro ama badda ha isku tuuro. Qofka markuu qarka iska tuuro oo uu ku talagal u sameeyo ama uu isceejiyo oo uu naftiisa ugu talagalay inay maxaan ku rahdaa tagto, taabaa loo yaqaanaa suicide. Halka iyana arrimo kaloo idan ciidda ka badan oo idana homicide ah oo qof bini'aadan inuu qof kala dilo oo dhibka u geysto, taasoo keenta qofkii inuu nafta waayo ama xabad ha u adeegsado ama siyaabo kale ha u adeegsado. qof markuu dilana waa homicide. waa labadaa kelmad horta luqad ahaan iyo terminology ahaan waxaan doonaya inaan kala caddeeyo. Mar hadduu suicide-ka yahay markaa qofka bini'aadanka inuu naftiisii asaga tii u lahaa inuu dhib u geysanayo. Marka maxaa sababa? Runtii lama garan karo 100% waxaa sababi kara oo maanta la sheegi karo ma jirto, laakiinse waxaa la og yahay in ay sabab kasta keeni karayso. Sababaha keeni kara waxaa kaloo ka mid ah qofka mar hadduu mental health issues u haysto oo dhibaatooyin badan ay soo taabteen aynan inaga garanayn, laakiin qofka ay taariikhdiisii hore ay soo taabatay dhibaato mental health ah oo trauma, hadday noqon lahayd gurigii ama wadankii ama meelihii uu soo maray. Qof isma wada naqaano, dibadahanaan isku wada baranay ama wadankii, qof kasta taariikh buu soo maray. Marka qof kasta duruufihii uu soo maray
ee traumada ahaa haddii ay qofka ku keeni karayaan wax build up oo maalinba heer soo maray. maxaa yeelay inta kor maraynu ka hadlaynay oo aan dadka la wadaagay waxay ahayd waxa loo yaqaano phobia oo qeybaha ugu horeeya runtii dhibaatooyinka qofka markay soo gaaraan uu saameynta ku leh. marka phobia-daasi ilaa iyo leebaladii kale ka dambeeyay oo ay depressionka iyo wax kasta ay ka mid ahaayeen ilaa iyo psychosiska way dhici karaysa inay qeyb ku yeeshaan. sida gabadha kheyr allaha siiye wariyaheenna ay inoo sheegtay in iyada culays haystay oo ka haysta laba meelood ama gurigeedii iyo shaqadeedii inay isu bahaysteen iyo caruur iyadoo ay dhashay culays runtii ka ballaaran iyo waddan dhan sugaya iyo muqdisho iyo soomaaliya dhan iyo hami ay lahayd in ay tamaniday in ay maxaan ku rahdaa qaras ka tuurto oo ay isdisho. waa sida aynu ka maqalnay aamina muuse u heliye. dad badan baanu arkaynaa social media maalin kasta ka qeylinaya oo dhahaya waxaan u baahanahay maxaan ku rahdaa halay caawiyo. waxaanu arkaynaa maalmo kasta dad naloo keenaya masaajida oo laleeyahay kaaliha lagu tukado hebel baa masaajida maxaan ku rahdaa yaalla qaboojiyaha. marka waxaasoo dhan runtii waxay u baahan tahay in runtii la fahmo waxa ay yihiin. dabadeedna haddii wax laga qaban karayo runtii bulsho ahaan wadaad ahaataya imaam noqoya iyo macalimiin iyo saaxiibo meel kastoo ay joogaanba qof kasta inuu fahmo dabadeedna waxaanu ka qaban karno in aynu ka qabanno. marka risk factorska runtii la yaqaana ilaa hadda waxaa kaloo ka mid ah horta qofkan suicide-ka waa does not discriminate. qof kastoo bini aadan ah waa at risk weeyaan, waa diyaar buu yahay waana ka suurowdaa. innagu haddaynu nahay ahaanta aynu ahaana Soomaali waa ku soo celinayaa Soomaali ahaanta aad ahaatay adigaan iyo aniga iyo cid kasta oo magaca ila sheegata dhammaantayo waxaa naga suurowda in arrintan aynu ku kacno meelay ahaata iyo waqtiga ahaataba sababtoo ah taariikhda inoo taal 30 sano ugu dambeeyay iyo taariikhda ka sii horeysay iyo waxyaalo badan oo runtii maanta ina haysta meel kasta aynu joogno inagu haysta. waa suuragal in aynu isdillo. marka si taa aysan u dhicin weeyaan waxa aan u sameynayo maxaa yeelay dagaal culus oo sokeeye bayna soo maray oo ilaa haddana haysta. maalin kasta durbaanada waddanka ka dhacaya iyo taageerooyinka kala duwan ee kala dhacaya weli waxay qeyb ka yihiin niyad jabka qof ku keeni kara inuu isdilo. marka runtii waxaan doonayaa inaan laba kelmad ku darsado arrintan haddii ay suuragal tahay oo qof kasta ay ku dhici karayso. marka calaamadaha lagu gartaa maxay yihiin? calaamadaha lagu gartaa runtii aan doonayo oo aan runtii meelo ka soo xigtay arrintu maadaama ereyadatan aysan ahayn arrin aniga aan ku takhasusay waxaan is yiri qofka haddii verbally maxay dadka qaarkood waxaad arkaysaa hebel baa hadlay waxaa dhici karaysa inaad tiraahdo waa iska yaryeelayaa hebel ama hebel attention buu raadinayaa iyo iska yaryeel iyo maxaa la dhihi jiray wuxuu rabaa in la dhageysto. taa may aha. qofka haddaad aragtay isagoo hadlaya oo dhahaya I'm going to kill myself war naftaan doonaya inaan iska qaado ama waa iga hortimid tani ama noloshan joogis ma leh ama indirectly isagoo dhahaya qofkii you are all going to be sorry when I'm no longer here. haddii aad aragtay qof dhahaya idinkaa welweli doona marka anigu aan meeshaan ka tago badanaaba ilmuhu hooyooyinkooda ku dhahaan waalidkooda ku dhahaan marka waalidkuna waxay dhahaan ardo nacasyahoona daa waxa iska yeelaysaa. taa ma jirto. qofka haddii hadalladaas ay ka soo baxaaniin waxaa wanaagsan in runtii la dhageysto oo lagu xiro ama loo raadiyo markaa gargaarka uu baahan yahay. ama qofka haddii uu yiraahdo my life is not worth living anymore noloshan waxay dhaantaa anoo iskaga taga. taani waa ku badan tahay bulshadeena. noloshan waxay dhaantaa anoo iskaga taga. taas maad aragtaa mar kastaaba noloshan joogis ma leh noloshan isaga tagaa habboon waxyaalo noocaas oo kale runtii way ugu badan yihiin.
marka waxaa habboon haddii qofku uu sidaa yidhaahdo in qofka dad haddii adiga aadan awood u lahayn qof kasta wax wuu qaban karayaa qasab maaha inaad master iyo PhD ama psychologist aad ahaatid ama social worker aad ahaatid haddaad aragtid calaamado kasoo bidhaamaya qof masaajideenay joogaan guryaheenay joogaan xaafadaheenay joogaan suuqyaday joogaan social media saaxiibo nagu leeyihiin qofka haddii aad aragtid isagoo calaamada noocaas oo kale kasoo bilaabanayaan runtii waxaa wanaagsan qofba qofku ugu dhow yahay ama qofkii access u leh qofka noocaas oo kale ah sida ugu dhaqsada badan inuu wax uga qabto arrimo psychological oo hadda depressionka iyo long term depression iyo qofka inuu helpless dareemo hopeless dareemo qofka overwhelmed u noqdo ama qofka uu sad yahay mar kastaba murugo ay kusoo maxaa la dhihi jiray qofka emotionally inuu qofka mar kastaba preoccupation with that qofka inuuba geeriba mar kastaba ay maskaxdiisa ka guuxayso mar kastaba uu rabo inuu isdaayatan oo qofku leeyahay ama gaarigana waxaan jiirsiinaya ama meeshaan iska tuuraya badan baa isku ridaya ama qofku uu leeyahay noloshan maxaan halkan ka fadhinaya waa inaan ka tagaa meeshan ama qofka inuuba maxaa la dhihi jiray uu isolation iyo crying uu sameynayo uu ooyayo waxyaalo badan waxaa jira xagga behaviorka idana qofka low self esteem qofka haddii dadnimadiisii uu quusto uu maxaa la dhihi jiray soo arko inuusan adduunkan qiimaba ku lahayn runtii calaamado runtii u baahan weeyaan in wax laga qabto ama qofka haddaad aragtay isagoo qoraysa sawiraya iyo suicidal note sameynaya iyo waxyaalo noocaas oo kale runtii waxa weeyaan waxyaalo loo baahan yahay dadku inay ku baraarugaan oo ay maxaa la dhihi jiray attention siiyaan markay situational tahay sida arinta ay gabadha ka dhawaajiso kale haddii qofka relationship break up iyo separation iyo divorce ama qofka ay dhibaatooyin kale u gaar ah qoyska ah domestic violence ay ku yimaadaan iyana waxyaalahaas waxay keeni karaan in qofka uu maxalli tamaniyo waxyaabo badan ma oranhayo qofka dirid kaliya tamaniya laakiin wax kasta ayaa ku soo dhacaysa maskaxdiisa marka dadka noocaas oo kale bulshadeena ku jira waa inaan iska warqabnaa maxaa yeelay dadka iyagu ma ay laha meel ay u cawdaan dadka iyagu marka baaritaan la sameeyay waxaynu ogaanay qof trusted source ah oo aad intaad wacid aad sir ku qarsan karaysa waa yar yahay marka qof kastaba inta uu iska celinhayo qofka kale dhinaciisa jooga ayaa waxa weeye kulliga iyagu waxaynu maalin kastaba ka daadageynaa ka dhaadhicinaa bad iyo dab iyo holac iyo maxaan ku leedahay geeri iyo qubura marka waxaa fiican dad la yaqaano sida culimada sida dhaqaatiirta sida maxaan ku aqoon-yahanada sida dadka muxtaramiinta ah ee maxaa la dhihi jiray dadka noocaas oo kale ah waa inay samaystaan sumcad lagu aamini karo oo qofkii inta uu gurigiisa ku ooyi lahaa qofka inta uu ooyi lahaa oo gurigiisa ku ooyi lahaa dad intaa telefoonka qabsata oo tidhaahdid war hebelow dhibkaasay haysta waxaan doonayaa aan ka baqanayaa inaan isdilo waxaan halis ugu jiraa nafteyda inaan qaado markasta waa in la heli karaa haddii aynan inaga iska helin oo aynu kulligayo aynu ka baqanayno inta ceebtaada banaanka soo bixi lahayd waxaa ku wanaagsan keligaaga qarso haddii saa ay tahay sheekada runtii xal ma noqonayso marka waxaan ku talinhayaa qeyr allahna siiye isdilidda innaga naftayada aanu dilnaa waxay noqotay arrin maantay muuqata oo banaanka soo baxday oo soo daahirtay waxaana loo baahan yahay bulshayadu in aynu u istaagno oo aynu wax ka qabanno waa it's a crisis waa public health crisis insha allah waxaan doonayaa sababtaasi weeyaan sababta aan jeclahay kelmadda keliya maxaa yeelay taqasuskayga may aha laakiin waxaan isleeyahay kelmaddaasi aad og tahay oo ay dhici karayso boqolaal kale inaysan ogeyn gaarsiiya ilaahu inagu anfaco nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu inoo sheegay balliquu canii walow aaya taasoo macnaheedu yahay kelmad kasta oo wanaagsan oo xaq ah ama xikmad ah ee ay dhici karayso adiga inaad og tahay laakiin ay dhici karayso dad badan inaysan ogeyn in aan ula sheergarayo taa darteedaan doonayaa marka insha allahu ilaahay naga dhigo kuwii badbaada oo dunida tan ku badbaada iscaawiya culayska ina haysta bulsho ahaan wuu badan yahay culayska ina haysta haddaynu nahay Soomaali aad buu u badan yahay
ilaahay ha ka dhigo kuwa madaxdayda oo ahna kuwa garta maxaa yeelay qayb bay ka yihiin dadkan isdilaya ama homicidalka qofka kala dilaya waxaa qayb ka ah waxa waddanka ka socdana waa qayb bay ka tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.